bulshooy iga hoogo dhambaal dareen hooya hadlaaye hoggaanka dalka wi maqal hawraartaydani guddoon u hiilsha hadduu xaq yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أي بشو تحي لبيه طبعاً بش شناد لبكوني لبيه لبعتن وحين هلك ديسكوسو تاجي أنا أنا قد بني أورس حافظات كيجن وكسب سين هاي أرمها كتيرة كمش كدور شوي كقرنكا أنا صببت أنا أقول هلك ديسكوسو تاجي يعني وربحين تن وبحنا يعني وحوي ما دام أنا هاي أنا xubintii loo doortay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka oo aan ahay xubinta dhalisay hadalhaynta badan ee ka socota maanta Soomaaliland waxay ka maarmi weydo aan ka maarmi waayay inaan bulshadeeda qiimaha badan u cadeeyo halka ay wax marayaan iyo sida ay wax yihiin ee xaqiiqada ah komishanka doorashooyinka qaranku waa hay'ad madax bannaan kuna dhisan xeer number 19 /2020 komishanku waa guddiga sare ee loo xil saaray maamulidda iyo ka garsoorida arrimaha doorashooyinka xeerarka kala duwan ee dalka ayaa siiyay madax bannaani buuxda oo ay ku gutaan waajibaadkooda shaqo si madax bannaan oo aan lagu samayn karin wax faragelin ah komishanka doorashooyinka qaranka ee hadda shaqeeya iyo komishankii hore ee doorashooyinka oo aan ka mid ahaa waxay fuliyeen doorasho madaxweyne oo dalka ka dhacday 2017 iyo doorashadii isku sidkaneed ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee dalka ka dhacay 2021 si qiimo badan oo ceeb la'aan ah ayay inoogu dhaceen doorashooyinkaas waxaana ammaanteeda leh madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynihii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyaga oo labadooduba ay magacaabeen laba xil oo kala dambeeyay oo aan kaga mahadnaqay horana imikana aan uga mahad celinayo magacaabistii ay magacaabeen waxaan ilaaliyay magacooda iyo sharaftooda waxaan u xadka xidhay sida ay magacaabeen inaan u guto xilka si iyagana aanay ugu imanin wax dhaliilah qodobka 13aad xubnaha komishanka doorashooyinka xubnaha komishanka doorashooyinka waxay ka kooban yihiin 7 xubnood oo kala ah gudoomiye ku-xigeen iyo 5 xubnood gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka komishanka iyaga iska dhex dooranaya komishanka xil gudashadiisa wuxuu ku saleynayaa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkan iyo xeerarka kale ee khuseeya shirarkoodu waxay ku qabsoomayaan quorum go'aanadooduna waxay ku ansaxayaan aqlabiyad qodobka 43aad ee sheegaya shaqada komishanka doorashooyinka qaranka ee diiwaangelinta iyada oo aan waxba loo dhimayn xilka iyo waajibaadka komishanka doorashooyinka qaranka ee xeerarka kale u xil saareen komishanku waxa uu dalka Soomaaliland ka dhaqan gelinayaa hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha ka hor taariikhda doorashada qodobka 16aad awoodaha komishanka faqradiisa 15aad komishanku wuxuu si madax bannaan u maamulayaa qandaraasyada la xiriira agabka iyo adeegyada doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha si waafaqsan habraaca qandaraasyada haddaba ma jirto wax dhib ah oo ka dhacay komishanka doorashooyinka qaranka waxaa kaliya oo ka dhacay komishanka doorashooyinka qaranka oo ay sameeyeen isbedel ku yimi hoggaanka iyadoo la bedelay gudoomiyihii hore ee Cabdirashiid Riyaraac la doortayna gudoomiyaha cusub ee Kaltuun Sheekh Xasan oo aniga ah 27 bisha Afraad 2022 doorashada waxaa loo maray sifo sharci ah oo markii horeba lagu doortay gudoomiyihii hore sida uu dhigay xeerka doorashooyinka xeer number 19/2020 qodobka 13aad oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka ma jiro manay dhicin marnaba
wax khilaaf maaliyadeed ah oo xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay si gaara u codsadeen oo soo dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka. waxaa ise jiray khilaaf maamul oo soo jireen ah oo uu abuurayay guddoomiyihii hore komishanka doorashooyinka qaranku. haddaba qaar ka mid ah khaladaadka uu ku kacay guddoomiyihii hore ee keentay xilka qaadistiisa: wuxuu ku tagrifalay awoodda komishanka, wuxuu fuliyey awaamiir aanu kala tashan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo sida uu dhigayo xeerku ah guddi sare oo maamusha doorashooyinka, go'aamadana u gaadha hannaan guddi si waafaqsan xeerka doorashooyinka xeer nambar 19/2020 qodobka 13 oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka qaranka. xeerkan doorashooyinku wuxuu yaqaanaa oo keliya komishan ee ma yaqaano xubin keligeed xeerka isku koobta. waxa uu faragelin maroorsi iyo is-hortaagid ku sameeyey shaqooyinkii guddi-hoosaadyada komishanka doorashooyinka qaranka ee qaabilsanaa hagidda iyo jihaynta shaqada maalinlaha ee komishanka doorashooyinka qaranka. wuxuu si badheedha ugu sheegay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka inaanay awood u lahayn fulinta howl maalmeedka shaqo oo ay ku kooban tahay oo keliya isaga iyo agaasimaha guud. xubnaha inta kalena ay yihiin board of directors. waa kelmadaha uu isticmaalay. wuxuu is-hortaag ku sameeyey magacaabistii iyo xulashadii shaqaalaha xarunta dhexe oo ilaa iyo hadda qaybo badani bannaan yihiin, iyada oo bilowga diiwaangelinta ay ka dhiman tahay wax ka yar bil ama 3 cisho gudaheed. wuxuu sameeyey magacaabis, eriyid iyo isku beddel shaqaale isaga oo baalmaray xeer nambar 19/2020 qodobka 16 ee awoodaha komishanka faqradiisa 3 oo u dhigan sidan: inay magacaabaan, eriyaan, anshax mariyaan shaqaalaha xafiiska dhexe iyo gobollada iyo degmooyinka doorashooyinka si madax bannaan, isaga oo keligii isku koobay awooddii xeerku siiyey komishanka doorashooyinka qaranka. wuxuu carqalad ku noqday isla markaana is-hortaagay fulinta jadwalka diiwaangelinta oo uu hadda ku yimid dib u dhac keeni kara saamayn badan. wuxuu is-hortaagay in komishanka doorashooyinka qaranka loo sameeyo hannaan casri ah oo lagu maamulo xisaabaadka komishanka doorashooyinka qaranka si loo helo daahfurnaan maaliyadeed, maadaama mar walba ay isbeddelayaan nidaamka iyo hababka loo sameeyo xisaab celinta. wuxuu ku tagrifalay maaliyadda komishanka doorashooyinka qaranka si ka soo horjeeda xeer nambar 19/2020 isaga oo gaadhay go'aamo maaliyadeed oo aanay ansixinin xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku, isla markaana laga qariyey xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee u xil saaran la socodka maaliyadda. wuxuu u maamulay si baalmarsan sharciga doorashooyinka iyo hannaanka qandaraasyada komishanka doorashooyinka qaranka qandaraasyo muhiim u ah doorashooyinka soo socda, sida qalabka lagu hubinayo codbixiyayaasha maalinta doorashada oo loo yaqaano biometric voter verification system oo ay lacagtiisu dhammayd 2 milyan, kaasoo komishanka doorashooyinka qaranku haba yaraatee aanay wax xog ah ka haynin nidaamka uu u maray, oo uu ka hor istaagay in laga dalbo shirkadihii nidaamka diiwaangelinta hore ugu sameeyey komishanka doorashooyinka qaranka ee iswaafajin lahaa qalabkii hore u yaallay iyo nidaamkan cusub, maadaama iyagu ay ahaayeen khubaradii marka horeba samaysay nidaamkii hore lagu shaqeeyey. agabkaas oo hadda u muuqda mid cillado badani ku soo baxeen, isla markaana aan tay ahaan shaqadii loogu talagalay qaban karin, sida shaqaalaha IT ee komishanka doorashooyinka qaranku ku sheegeen warbixin ay u soo gudbiyeen xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka 24 bishii February ee 2022 kadib markii tijaabo hordhac ah lagu sameeyey agabka biometric voter verification systemka. wuxuu is-hortaagay inaanu madaxweynaha u gudbinno taariikhda la bilaabi doono diiwaangelinta oo ah sharci in loo gudbiyo madaxweynaha si uu ugu soo saaro xeer madaxweyne sida uu dhigayo qodobka 44aad ee xeer nambar 19/2020.
haddaba waxaa xusid mudan in cabashada iyo saluuga xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay ka qabeen guddoomiyihii hore aanay ahayn mid imika bilaabantay ee ay ahayd mid soo jireen ah in badanna soo socotay. saluuga maamul ee guddoomiyihii hore waxaanu la wadaagnay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ka hor doorashooyinkii isku sidkanaa ee dalka ka dhacay bishii 5aad 2021 tira ahaanba 3 jeer oo kala duwan ayaan u cabanay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland si loo saxo khaladaadkii faraha badnaa ee aanu ka cabanayay. madaxweynuhu wuxuu noo soo jeediyey inaan u dulqaadano culeysyadaas nagaga yimid guddoomiyaha mudnaantana aanu siino qabsoomidda doorashooyinka oo markaasi muddo kooban ka harsanayd taasoo aanu ka aqbalay madaxweynaha qaranka sharaftiisana aanu ku qaadanay inaanu culeyskaa u qaadanno fulinana codsigii madaxweynaha. haddaba markii xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay arkeen arrimahaas kor ku xusan una caddaatay in is-hortaag iyo carqaladayn joogto ah uu ku yahay diiwaangelinta doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda, xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka iyaga oo gudanaya waajibaadkooda sharci waxay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii hore Cabdirashiid Maxamed Cali sida ku caddayd qoraalkii ka soo baxay komishanka doorashooyinka qaranka 27 Abriil 2022. waxaana cod aqlabiyad ah ugu doorteen guddoomiyaha cusub ee Kaltuun Sheekh Xasan oo ah aniga. guddoomiyihii hore wuu fadhiyey shirkii lagaga qaaday xilka min bilow ilaa iyo dhammaad. haddaba xilka qaadistii ka bacdi maxaa dhacay? markii xilka laga qaaday Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaraac wuxuu bilaabay inuu u dacwoodo madaxweynaha, waxaanu isla subaxnimadii xilka laga qaaday ee 27 bishii Afraad u qoray qoraal uu ku dalbanayo in komishanka doorashooyinka qaranka baadhis lagu sameeyo. ma jirto meel uu 25 bisha Afraad ku gudbiyey qoraalkiisa dacwadda ah. hortayada ayuu ku qoray, waxaanu noogu goodiyey oo uu noo sheegay inuu madaxweynaha u geynayo warqad dacwad ah. waxaana caddaynaysa tixraaca warqadda xilka lagaga qaaday iyo ta uu u gudbiyey madaxweynaha oo ah kuwo isku maalin baxay iskuna xiga tixraacoodii. warqadaas oo ah tii uu madaxweynaha u gudbiyey tixraaceedu waxa weeyaan halkaasaad ka aragtaan 008. halka warqadda kale ee xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay u gudbiyeen madaxweynaha iyaduna ay tahay 009 iskuna xigaan taariikhduna labadoodaba ay tahay 27 bisha Afraad 2022. waxaa kulan isugu yeedhay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland 28 Abriil 2022. wuxuu noo sheegay inuu xilka qaadistii guddoomiyaha hore iyo doorashada guddoomiyaha cusub uu u xil saaray garyaqaanka guud iyo xeerlaaliyaha qaranka si ay u soo eegaan sharcigu waxa uu ka qabo. arrinta hanti dhowrka. xafiiska hanti dhowraha guud wuxuu xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka ka bilaabay baadhis dhammaadkii bishii Oktoobar 2021 isagoo u sheegay komishanka doorashooyinka qaranka inuu dhammayn doono baadhistaas bisha Noofembar aynu soo dhaafnay 2021. intii baadhitaanka hanti dhowrku socday wax xanaanka maaliyadeed ah waxba lagama weydiinin xubnaha kale ee komishanka doorashooyinka qaranka. waana sida nidaamka hanti dhowrka caalamku u shaqeeyo in la wareysto cidda saxiixa leh. muddo dhowr bilood ah kadib xafiiska hanti dhowruhu wuxuu dib u soo celiyey qoraalladii uu qaatay, waxaanu xubnaha komishanka doorashooyinka ku wargeliyey oo u sheegay inay dhameeyeen shaqadii, samayna doonaan arrimo fudud oo ah sixidda habka xisaabaadka si hanaanka cusub ee dowladda loo waafajiyo. intaa kadib waxaa komishanka doorashooyinka qaranka loo sii daayay lacag dhan 5 bilyan si loogu sii bilaabo diiwaangelinta codbixiyaasha. haddaba waxaa xusid mudan in hanti dhowrkii hore shaqadooda u dhammaystiray ay soo noqdeen 28 Abriil 2022.
maalin kadib xilka qaadistii guddoomiyihii hore oo ay dib u qaateen documentiskii ay hore u soo celiyeen. waxaanu caddaynaynaa in xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku aanay lahayn wax saxiix maaliyadeed ah oo aanay sinaba u isticmaali karin lacag aanu guddoomiyuhu u ansixinin, lagumana saaro magaca xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka. saxiixa lacagta waxaa iskale guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka iyo agaasimaha guud. lacagta lagu maamulayo gobollada marka ay hawshu socotana waxaa si toos ah loogu diraa shaqaalaha gobollada ee komishanka doorashooyinka qaranka, iyagaana xisaab celinta toos u soo gudbiya. waxaa jira lacag aad u yar oo ah bitikaasha ama kharashka maalinlaha yaryar iyo loogu talagalay oo lagu galo howlgallada gobollada ee diiwaangelinta iyo doorashadu ka socoto. lacagtaasna waxaa ka mas-uul ah xisaab celinteeda xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka. haddaba gunaanadkii komishanka doorashooyinka qaranku waxaanu diyaar u nahay in la soo diro guddi baadhiseed oo madax bannaan oo baadha arrimaha komishanka doorashooyinka qaranka. waxaanuna rumaysannahay guddiga hadda lasoo magacaabay inaanay ahayn guddi dhexdhexaad ah. waxaanu ku talinaynaa inaan maanta la burburinin tacabka somalilan ay soo dhisaysay muddada ka badan 20 sano iyo sumcaddii somalilan ka heshay doorashooyinkii dalkan ka qabsoomay ee 2017 ee lagu doortay madaxweynaheena qaranka iyo tii 2022 ee lagu qabtay doorashooyinkii isku sidkanaa. waxaanu rumaysannahay in aanu si sharciga waafaqsan uga qaadnay xilkii guddoomiyihii hore kuna dooranay guddoomiye cusub si sharci ah. waxaananu diyaaru nahay inaanu sidaas ku qabanno xilkii aanu ummadda reer somalilan ugu dhaaranno, taasoo ay ugu horeyso qabashada diiwaangelinta codbixiyayaasha ee bishan dhammaadkeeda ku muddaysan, doorashooyinka ururada amase xisbiyada iyo doorashada madaxtooyada ee ku muddaysan sanadkan dabayaaqadiisa. waxaanu ka xunnahay in ay niyad jabaan daneeyayaasha doonaya inay u tartamaan doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxtooyada. waxaanuna u sheegaynaa inaanaan diyaar u ahayn dib u dhac xagga iyaga ka yimaada. waxaanu ballan qaadaynaa in aanu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan kala shaqayn doono fulinta qabsoomidda doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxweynaha sida uu ballan qaaday madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi. komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyey qorshaha maaliyadeed iyo howlgal ee lagu qabanayo doorashooyinka. intaa ka bacdi waxaan la wadaagayaa bulshada reer somalilan in guddoomiyenimada aniga la ii doortay aanay caqabad ku noqon doonin qabashada doorashooyinka aan soo sheegay si kastoo ay ahaataba. haddaba waxaa jira warxumo tashiil dad badan oo warxumo tashiil ah oo gudbinaya waxyaaba aan ku fiicnayn qofka bini aadanka ah ama waxyaaba aanu xaq ugu yeelanin doonaya inay ku carqaladeeyaan, taasoo ah warar ku tiri kuteena oo aniga toos iigu socda oo la doonayo in wax lagu yeelayo laguna duro guddoomiyennimadeyda. qolada aan sheegaya ama gruubka aan sheegaya waa koox dhammaystiran oo tiradeedu ay aad u badan tahay, horena iigu soo gudbiyey qoraal ay ku wada saxiixan yihiin iyaga oo ii sheegaya inaanan anigu ku matelin xubinnimadeyda komishanka doorashooyinka qaranka ee uu madaxweynuhu ii magacaabay aanan haba yaraate iyaga ku matelin. si gaara shakhsiyan aflagaadooyinka ay iigu geysteen oo toos ah oo ah gobolnimada aan ka soo jeedo oo ah gobolka Gabiley waa laygu aflagaadeeyey, taasoo u dhigan inaanan u qalmin positionka komishanka doorashooyinka qaranka. waxaan anigu u sheegayaa degmada Gabiley iyo gobolka Saaxil aniga waa isugu ka yimid haba yaraatee joogitaanka aan joogo komishanka doorashooyinka qaranka gobolka Gabiley wax sadbursiimo ah kuma helo, Saaxil kuma weydo, gobollada kale ee qarankuna waa sidaas oo kale. meeshan waxa wax loo qabanaya loo shaqeeyaa waa xubno tartamaya, waa xisbiyo,
wixii ummaddu ay siisay ee loogu codeeyo ayuun baanu komishanka doorashooyinka qaranku soo saaraa waxaan u sheegayaa xubnaha ah geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay sidii aniga iyo carqaladeyn lahaayeen haddii halkan yimaadaan in iyaga laftooda dhexdhexaadnimada aan ahay unay noqon doonaan kadib marka la mariyo kitaabka qur-aanka ah waxaan leeyahay xubnahaana meel aan laga dayin guul ha ka dayina qaranimada Soomaaliland inaad ixtiraamtaa baydin wanaagsan qaranku shuruuc bil iyo kala dambeyn shuruucda iyo kala dambeynta qaranka inaad ixtiraamtaan ayaan idinku waaninaya oo aad ka baxdaan ta shakhsiga ah iyo isku horkeenka aad wadaan ilaa imika intaasaan kaga baxay qaranka Soomaaliland waxaan rajaynayaa guul waxaan leeyahay qarankayga haniyo jabina cid kasta oo hawshan qabataana diyaar bay u tahay inay noo fuliso hawsheena doorashooyinkeena inay noo qabsoomaan qarankeena aanu dib u dhac ku imanin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh